komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dalka ku soo dhaweeyay goobjoogayaal caalami ah kuwaas oo ka markhaati noqon doona doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee 31 bishan ka qabsoomaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ay wehelinayaan xubno kamid ah komishanka ayaa waxay garoonka Cigaal International Airport ku soo dhaweeyeen goobjoogayaashan oo horkacayo madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone injineer Cabdirashiid Maxamuud Cali Cabdirashiid Riyaarac gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo goobjoogayaashani warbixin guud ka siinayay sida ay doorashooyinka Soomaaliland dalka uga dhacayaan ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay komishan ahaan u qorsheeyeen in ay u dhacdo doorashadani waana kan injineer Cabdirashiid Riyaarac oo amurahaasi ka hadlaya. We welcome you to Somaliland and we appreciate your presence to Somaliland and to Hargeisa and to absorb our elections. We really appreciate and it's a great help and it's a great support. kusoo dhawaada Somaliland waan xushmaynaynaa imaadinkiina halkan xaqiiqdii waana waxaad noogu muujinaysaan taageero 2021 election sanadkan 2021 waa markii ugu horeysay ee aan qabanno laba doorasho oo isku sidkan weligayo Somaliland kama ay qabsoomin laba doorasho oo wada socda waa la wada qaban karaa hadday tahay doorashada madaxtooyada baarlamaanka iyo golayaasha deegaankaba laakiin waqtigan waxa aan doonaynaa in aan qabanno laba doorasho. Every polling center there will be two boxes. goob kasta oo doorasho waxaan dhigaynaa laba sanduuq oo lagu kala ridayo mid golayaasha deegaanka iyo mid wakiilada dabcan si aan u yareyno waraaqaha codbixinta iyo in aan yareyno waqtiga waanu yareynaynaa tirada dadka ka codeynaya goob kasta oo doorasho. The number of voters each center maximum 450. ugu badnaan 450 codbixiye ayaa goobtiiba loo asteeyay in ay ka codeeyaan waxaanay noqonaysaa in la labanlaabo goobtii kasta oo la dhigo laba sanduuq waanay adkaanaysaa in si dhib yar loo tiriyo goobaha haddii aan sidaas la yeelin. tirada goobaha codbixintu waa 2709 xarumood tirada murashaxiintu waa 798 murashax 552 golaha deegaanka dalka oo dhan 246 golaha wakiilada total 798 552 for the local council 552 and 246 for the lower house the parliament. sidoo kale gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdirashiid Maxamuud Cali Cabdirashiid Riyaarac waxa uu ka dalbaday goobjoogayaashan caalamiga ah ee ka markhaati noqon doona doorashada Soomaaliland inay gaarsiiyaan waxa ay halkan ku arkeen dalalka ay ka yimaadeen iyo waliba dalalka kale ay saaxiibada yihiin. Giving our information to the wall, taking back what you see, and I hope you will see a good thing. waxaan doonaynaa in aad gaarsiisaan wixii aad halkan Somaliland ku aragtaan dunida kale waxa kale oo aan doonaynaa in xuquuqda aanu u leenahay iyo dhibaatada dhinaca xuquuqda bini'aadanimo ee dhinaca siyaasadda naga haysata in aad gaarsiisaan dunida waxaan rajaynayaa in aad wax fiican ku arki doontaan doorashooyin u dhacaya si nabadgelyo ah oo xor iyo xalaal ah indhihiina ayaa ku arki doontaan annaguna waa diyaarsanahay haddii laga eego dhinaca nabadgelyada dhulkayagu waa nabadgelyo waxaad ka warwartaan nama yaallo Somaliland waa nabadgelyo dhibaatana ma jirto waxaa jira dad badan oo ajaanib ah oo ka shaqeeya oo ku nool dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rajaynayaa in qof waliba si nabadgelyo ah uu u dhex socon doono Somaliland waxaa ku noqonaysaan dalkiinii idinku oo haya war wanaagsan. With the good news. Thank you very much.